haweeneydan waxay kalideeda ugu deeqday haweeneydan kale oo u xanuunsaneed u baahneed oo waliba nafsadeeda ay ku xirneed labadooda xiriirka ka dhaxeeyna wuxuu yahay in haweeneyda ku deeqayso kalida loo yahay boss ama bedrooni balse qiyaas waxa dhacay waqti kadib ama bilooyin kadib waxa dhacdayba in haweeneydii shaqaale ahayd oo kalideeda ku deeqday shaqadii laga eriyo halkaas markay marayso kuma dhahay adiga maxaad sameyn lahayd ayadoo waxay sameysay aan ku sii horumarinay aan ku sheegay anagoo case ko faahfaahsan u imaaneen ayadoo waxay sameysay inay maxkamad la korto oo ay dacweyso kiis cadna ay ku furto ayadoo tiri kalideeda iska keen macnaha looma kala haray Give me my kidney back, go give me my kidney back. markii jaala ku soo dhawo muuqaalkan aan ku faahfaahinayno arintan sida ay u dhacday iyo waliba ugu dambeyn waxa ay ku dhamaatay sheekadani oo ahayd sanado ka hor laakiin mar waliba mudan in qofkii aan horay u maqlin uu maqlo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة صاحب شرفت بدن سؤال مركل بسؤال مقال كلا ولا لكن صاحب كان اسمه أسوي كانال كاسيدو كلا فيسبوك بيج كاوس برو مركل عن كلكم أصلا دعوة مقال كان دعوة ناس إيه وقتي قاعدكم بحناس كلي أريمنو عاني إن بدن وعلى مقلي أو هداي نخط حتى هويني أيارنين كذي وبحسي أما أسرتي كل ده مركي دم ويكلا تجينا موفري تاس بدل كذا أما فايس فيرسا سيدا إيه وجسوا هرجيدو أو كلا أيضا دعوة وحياة بس أساسية لكن مركي النقطة دنك إيه الشقة جودي هذا وحياة بس oo ka dhaco marka la xitaa markii aan baaray maan helin kaliyaha waxay kamid yihiin organada ugu muhiimsan bini'aadamka oo Ilaahay inoogu deeqay dhanka lahaan waa Ilaahay nimcadiisa yaani qofka bini'aadamka fully yeebu wada ahaan laakiin hal xab uu ku noolaan karaa sidaa darteed ayay xitaa mararka qaar dadka ugu bedeshaanba lacago si ay duruuf adduun markaasi jirtay uga baxaan halka dadka qaarna haday rabaan xitaa telephone iPhone ay ku bedeshaan sida ka hor ninkan oo kiiskiisa aan ka soo hadlay wal hadda aan soo galay markaa kiiskan u dhaxeeyay labadan islaamood sheekadan waxay dhacday intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2012 inkastoo xalkeedii ama kama dambaystiina la gaaray 2013 taasoo ka dhigan sheekadan waxay ahayd 10 sano ka hor laakiin mar waliba waxa ku jiro 10 nololeed okay haweeneydan oo haweeneyda kalideeda bixin doonto magaceed waxa la yiraahdaa Debbie Stevens haweeneydan ayaa sanadkii 2010 waxay ahayd haweeney 47 jir ah single mother ah oo haysatana 2 caruur ah يعني caruurteedana xitaa markaasi waxay ahaayeen caruur qaangaar oo weynaatay hadaba Debbie ayaa xilligaas waxay ka shaqeynaysay marka car dealership ama shirkad gawaarida iibiso magacooda la yiraahdo Atlantic Automotive Group oo ku taalo meesha la yiraahdo Long Island ee magaalada New York halkaas oo marka boosad ama bedrooniyadeedana ay ahayd haweeneydan kale ayadana la yiraahdo Jackie Brucia Jackie oo haweeneyda kalida heli doonto iyo Debbie oo haweeneyda kalida bixin doonto meeshaasi ayay ku kulmeen markaasi ayna ahaayeen laba qof oo shaqo wadaag ah inkastoo mid boss loo ahaa ama bedrooniyad loo ahaa hadaba Debbie oo xilligaas shirkadan ka shaqeynaysay ayaa markaa sanadkaasi 2010 bishii lixaad waxa ay ka guurtay magaaladaasi ama xitaa state-kaasiba ayadoo u guurtay state kale oo la yiraahdo Florida taasoo ka dhigtay markaa Debbie inay shaqadii ka tagto ee nolosheedii meesha kale ay u guurtay ay ka bilaabato reasonka ay u guurtay ee sababaheedana kulay waa wax u gaar ah oo aan sheekada qusaynin si kastaba hadaba Debbie caruurteedii oo aan sheegnay inay qaangaar ahaayeen mid kamid ah ayaada waxay ku nooshahay meeshii ayada ay ka guurtay oo in badan ay deganaayeen halkaas oo markaa bishii 9aad ama bishii September ee isla sanadkaasi 2010 ay mar kale noqotay inay ku soo booqato macnaha Debbie ayadoo guurtay ayay 3 bilood kadib ku soo laabatay si ay u soo booqato gabadheedii oo meeshaasi deganeed balse gabadheedii markii ay soo booqatay ayaa waxay hore u soo sii martay shirkadii ay ka shaqeynaysay si ay u soo salaanto waana caadi wax dhaco halkaas marka ay kula kulantay bedrooniyadeedii hore kadibna meesha ay ku sheekaysteen Jackie ayaana Debbie waxay uga sheekaysay oo u sheegtay xaalad xanuun oo markaas ayada ay qabtay oo ku aadanaa kaliyeeda inay kaliyeeda shaqeynayeen kaliyeedana mar walba isbitaalka tagto ma aragtay la dhaqo dhibaato badan ay ka haysato sida darteedana ay xitaa shaqada ay ku culus tahay oo ay aad u murugaysan tahay Debbie oo arintii ka walacday ka calool xumaatay ayada waxay weydiistay hadda maxaa sameynaysaa marka micnaha dhaqaatiirta maxay leeyihiin maxaa option oo la sameyn karaa markaas ayayna Jackie ugu jawaabtay kulay wax kale oo aan sameeyay hadda ma garanayo laakiin familkayga ama asxaabteeda ama si un ayaa waxaan u rajeynayaa inaan helo qof kalidiisa markaasi
igu deeqaayo oo dee saxankaas ay sameeynayo balse Debbie ayaa waxay ku jawaabtay dee aniga xitaa hawshaas waan ku sameyn karaayo haddii aad option kale weysid ama xaaladda ay sii xumaato ii soo sheego ila soo socodsii kadibna Jackie waxay Debbie ugu jawaabtay ayadoo kaftamayso taas waxaa laga yaabaa maalin inay igu badbaadisid ama aan bakaaga soo baahday isdiyaari oo kale macnaha hadaba waxa taas xigtay markaa in Debbie ay la qabsan weydo meeshii ay u guurtay haday shaqo noqoto ama haday caruurteeda u xiista ee noqotaba 3 bilood kadibna waxay dib ugu soo laabatay meeshii ay ka guurtay oo de shaqadeedana ay taalay meeshaas wax ka soo socdaan markaa bishii koowaad ee 2011 waxa dhacday markaa Debbie oo ku soo laabatay meeshii ay deganeed oo ah Long Island New York inay mar kale la xiriirto Jackie Bruce ayadoo sheegtay inay soo laabatay oo inay jeclaan lahayd mar kale hadii ay shaqo dib u siin karto in shaqadeedii ay siiso balse Jackie ayadoo waxba sameyn shuruudii waxba aan ku xirin ayay tiri aniga ayaa wax kula raadin doono isbuuci gudihiisana Debbie waxa ay dib u heshay shaqadeedii oo mar kale ayaa dib waxa looga shaqaaleysiiyay shirkadii gawaarida balse maalin ayaa waxa xafiiska ugu wacday badrooniyadeeda ama boosteeda Jackie ayadoona weydiisay hadda ka hor markaan sheekeysanayna adiga dhowr bilood ka hor aad meeshan igu soo mareysay ma xasuustaha aniga sidii ayaa weli aan u xanuunsanahay kalidiina sidii ayaan ugu baahanahay qof isiina weli ma helin macnaha adi maalintaas maad kaftamaysay mise dhab ayay ka tahay layaabkii Debbie waxay tiri aniga dhab ay iga tahay macnaha sababta aniga aan saas ku lahaana wax kale iga maahan inaan wax kale ku rabay iga maahan waxay iga tahay in oo maaragtay marna aad booskayga tahay marna aan saaxiibaba noqonay oo aanan kula jecleen dib oo aan rabin in dhibaatadaas darteed aad u geeriyoto sida darteed aad option kale haysanin diyaaran ku ahay kadib waxa xigay in gudaha loo galo baaritaankii lagu sameeyay dhiigoodii waxyaabahaasi markay ay noqoto in oo qaliinkaasi ama procedure-kaasi la sameeyo waxay u baahan tahay waxyaabo badan in la isku fiirsho waxaana dhaqaatiirtii ogaadeen in kalidan haweeneyda la yiraahdo Debbie aysan ahayn maajka ugu fiican oo kaliya ee Bruce heli karto sida darteedana waxa la yiri option kale oo ka fiican waa in la raadshaa okay wali meesha si xaaladda markay marayso Debbie ma aysan dhihin okay sidaas haday tahay bis anigu aan ka baxay teeda ama toos kugu shaqeynay waa may anigu kuma jiri ma aysan dhihin oo wali xitaa dhan kale ahaan in ay kalideeda u bixiso ama ku caawiso badrooniyadeeda ayay go'aan ku gaartay oo ma aysan ka soo laabanin kadibna waxa la siiyay option kale oo ah in Debbie kalideeda ay siiso xarunta lagu kaydiyo kaliyaha sida darteeda marka kalideeda halkaas aad dhigto oo aad ku deeqdo saaxiibadaada ama qofka aad kelida u rabto waxay ayadana sidoo kale isla markiiba si degdeg ah ay u helaysaa keli macnaha isbedelkaasi la sameeyay darteeda Debbie heshiiskii way ogolaatay labadoodaba qaliinkii ayaa lagu sameeyay oo Jackie isla markiiba waxa waayay keli cusub maadaama ay heshay xaaladeedii caafimaad way soo ladnaantay way soo toostay sidoo kalena Debbie ayada laftirkeedaba waxay noqotay in qaliinkii lagu guuleystay laakiin qaliinkii inkastoo lagu guuleystay Debbie sida ay Jackie caafimaad uga qaaday kelidii la siiyay ayada caafimaadkeeda taam uma aysan sababtoo intuu qaliinka socday ayaa waxa waxyeelo la gaarsiiyay neerfaha lugta ku aadaneed kelida balse tii waxay noqotay wax ay Jackie u dulqaadan weydaba oo yani istiraahdo oo kaalay qoftan macnaha maadaama ay keli ku siisay saas darteed ma advantage kaaga rabtaa ma waxay rabtaa special treatment oo maaragtay shaqaalaha kala dhan inay ka duwanaatay waxyaabahaasi adiga waxay sheegtay markaa haweeneydani in oo ay bilowday inay aad ugu qayliso oo ay u wajib bedelato ay kana san weeday oo markii dambena xitaa waxaba dhacdayba in Debbie ayadaba sidaas u xanuunsan oo xaaladaasi ku jirto loo bedelo xarun kale ama laan kale oo isla shirkadaas gawaarida ah oo gurigeedii u jirto 50 mile yani waa meel aad u fog oo dabcan in oo qof xanuunsan shaqo ka tagi karo hadana uu ka soo laaban karo yani haweeneydana saas waxay u sameynaysaa oo kelida la siiyay ama badrooniyadana tan hal mar ha ku dhaafto macnaha waa iska qabsigoodii ayaa batay oo isla markiina qof ay shaqada ka erin karto ma dhanka kale markaa Debbie weli shaqadeeda mayna diidin culays kasto ay ku ahaato shaqadeeda ayay tagaysay way soo laabanaysay balse waxa ku dhacay depression waxay bilowday markaa in mar walba shaqada ay ku dhex ooydo kadibna waxa ay la xiriirtay qof oo maaragtay xaaladaas nafsiyanka ah ka caawiyo oo kala hadlo qofkii ayaana xitaa sida wax uu sheekaysanayeen waxa uu kula taliyay xaaladda ay sidaas tahay oo aad dareemaysid in faa'iido laga qaatay macnaha lagu isticmaalay waxaad sameyn kartaa macnaha in aad dacwiso kadibna Debbie lawyerkeeda ayay la xiriirtay oo arintii ayay markaa u sheegtay kadibna lawyerkeedii ayaa companygii warqad u diray ayagoo maaragtay arimihii dhacay waxyaabahaas oo dhan ku faahfaahinayo iyo sida loola dhaqmay balse tii waxa u raacday Debbie sheekadaas badii aad keento waxa la yiri waaba lagu fasaxay macnaha shaqadii ayaa laga eriyay kadibna Debbie
waxaa dhacday markaa arintii toos dacwad inay ugu furto shirkadii oo ay miiska soo dhigto dhibaato walba oo loo geystay sida loo isticmaalay waxyaabahaasi oo dhan oo maaragtay soo koobayo qodobadii hadda aan ka hadlaynay. dhanka ahaan Jackie Broshi marka wax laga weydiiyay waxay sheegtay aniga hal wax xumaan ah oo haweeneydan aan u qabo ma jirto, mar waliba inta aan noolahayna waxaan uga mahad celin doonaa ama aan abaal uga hayaa in kelideeda ay siisay oo nafsadeeda ay badbaadisay. wax kale oo aan ka dhahayna ma jiraan. hadalkeeda intaas ayay ku soo koobtay. bas haweeneydan Debbie waxaas ayada markaasi ma mareynin oo waxay taagneed aniga bas hadii saan la ila dhaqmay caafimaadkayga uu sida xaaladeyda sidaan ay tahay kelideeda dib baa la iisii, aniga kelideeda un baan rabaa, shaqana ma rabo, wax kalena ma rabo. keli markaa dib dabcan looma soo siin kare, waxay noqonaysaa in qaab kale iyo waxyaabahaasi ahaan loo xaliyo sida aan maaragtay aan aqriyay. inkastoo wartoos oo xaqiijinaya aan jirin, laakiin meelaha qaar aan ka aqriyay ayaa waxaan ku arkay in 2013 markaa la siiyay magdhow gaarayo $150,000 sidaasna markaasi keyska lagu soo afjaray. marka la isku soo daro hadda dhamaadkan adigu weydiinayay arintan ama keyskan maxaa laga baran karaa ayay kula tahay. soo dhow.